السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel walba aad daafaha caalamka aad ka joogtaan kusoo dhawaada youtube-keena xirfad wadaag oo maanta aan kaga hadli doono waa maxay website ama mareeg. website-ku waa bar internet kaas oo noo ogolaada isgaarsiinta dhexmaraysa iibiyaha iyo iibsadaha. inta badanna waxaa loo badiyaa in uu leeyahay iibiyuhu. sidee loo heli karaa website? sida aan ogsoonnahayba internetku waxa uu ka kooban yahay malaayiin shabakadood kuwaasoo u helan mawduucyo kala duwan. mawduucyadaasoo la xidhiidha farsamada, cilmi baadhista iyo kubcinta garaadka, waxaana bixiya websaytyada ama mareegaha sida aad ogsoontahayba. maxay tahay faa'iidada uu leeyahay websayteku shirkaduhu si ay u horumariyaan ganacsigooda waxay isticmaalaan mareegaha ama websaytyada iyaga oo soo bandhiga macluumaadka xiriirka ama la yimaada foomka xiriirka si loo fudaydiyo isgaarsiinta mareegaha ama websayda iyaga oo isticmaalaya habka muuqaalka ama sanduuqa lagu sheekaysto, taas oo fudaydisa in si dhib yar loo ogaado adeegyada ay bixiyaan. dhan kale haddii aan ka eegno, bangiyada ayaa hadda sidoo kale isticmaala mareegaha ama websaytyada si ay macaamiishooda ugu xidhmaan adeegooda iyagoo xitaa iman bangiga. macaamiishu waxay awoodi doonaan in ay hubiyaan macluumaadka akoonkooda. bangiyadu waxay macaamiishooda ogeysiin karaan isla markiiba xaalad degdeg ah. websayteku muxuu muhiim ugu yahay ganacsiga cusub iyo kan sii jirayba? labada ganacsi ee bilowga iyo kan la aasaasayba waxay ka faa'iidi karaan suuqaynta mareegaha ama websaytyada, isla markaana mustaqbalka waxay beegsan karaan macaamiil si toosa ugu xidhan. si kastaba ha ahaatee, ganacsadayaashu waa in ay hubiyaan shabakaduhu in ay leeyihiin faa'iido saaxiibtinimo. sidoo kale macaamiishu ay si fudud u heli karaan macluumaadka ay raadinayaan. maxay muhiim ugu tahay in aad yeelato mareeg ama website? lahaanshiyaha mareeg ama website macnaheedu waa macaamiishu waxay awoodaan inay ku helaan wakhti kasta, meel kasta, xitaa ka baxsan saacadaha shaqada. mareegaha ama website-ka wuxuu sii wadaa inuu helo oo uu ilaaliyo macaamiisha cusub. waxa uu siiyaa isticmaalayaasha ku habboonaanta macluumaadka ay u baahan yihiin iyaga oo ku sugan guryahooda oo wax cadaadis ah lagu kordhin.